نبي يعقوب waxa uu ka soo jeedaa qoys wada nabiga ah abtirsigiisna wuxuu noqonayaa Yacquub ibn Isxaaq ibn Ibrahim alayhi salam sidii aynu ku soo sheegnay qisadii nabi Isxaaq alayhi salam nabi Isxaaq ayaa guursaday gabar lagu magacaabi jiray Rifqa bintu Yatu'il muddo badanna wax ilmo uma aysan dhalin markaasi ayuu Ilaahay ka baryay inuu caruur siiyo kadibna Rifqa ayaa dhashay laba wiil oo mataana ah magaca wiilka hore waxaa loo bixiyay Cizwa oo sidoo kale loo yaqaanay Cays mataankiisii oo isagana loo bixiyay Yacquub oo sidoo kale loo yaqaanay ama lagu naynaasi jiray Israa'iil nabi Yacquub alayhi salam dhalashadiisu waxay ahayd bishaaro xag alle ka timid si la mid ah dhalashada aabihiis alle ayaana u doortay malaa'igtiisa inay bishaaradaasi u geeyaan qoyskii nabi Ibrahim alayhi salam sida ku soo aroortay aayadda 69aad ee suurada Hud markii nabi Ibrahim iyo xaaskiisii Saara lagu bishaareeyay dhalashada wiilkooda Isxaaq waxay malaa'igtu ugu bishaareysay inuu Isxaaqna dhali doono wiil lagu magacaabo Yacquub daawadayaal ku soo dhawaada xalqad aynu ku eegayno qisada nabi Yacquub alayhi salam intaynaan u gudbin bilowga qisada ku soo biir channelka oo subscribe saar bogga Facebookna follow